waxaan kaloo ka mahad celinayaa aad ugu faraxsanahay mashaariicda horumarinta leh oo gudoomiyuhu halka dhawaajiyay oo ka socota Burtinle aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa hadday degmada tahay iyo hadday dawladda iyo hay'adaheeda kala qayb galay sida mashruuca isbitaalka oo Cabdirasaaq Garweyne ku dagaalamayay waxaan leeyahay kuwa kalena way dabcan anaaba ogaay ka qabteen wasaaradda caafimaadka runtii aad baan la socdaa aad baan ugu faraxsanahay mashaariicda ka socota Burtinle runtii waa degmo weyn oo aad iyo aad Puntland magac weyn ugu leh oo u qiimaysan waayo waxaan ugu abaalgudnay inaanu waxa shirarkan oo kale waa sanad leh lagu qaban jiray degmooyinka waaweyn oo Boosaaso Qardho Garowe meelaha aynkaas marka waa soo cadceedsanaan geelo soo ma taqaan geela markuu qorraxda xagga u jeeso cadceedsan waa soo cadceedsanoo hadda laga bilaabo Burtinland ka bilownay xaggan u sii jeednaa marka meelaha muhiimka ah ee degmooyinka aad iyo aad muhiimka wax weyn ugu fadhiya Puntland ayay ka mid tahay inta haddaan ka gudbo madaxdii iga horeysay waa sharaxday ulajeedada shirkeena kan wuxuu ahaa inaynu iska warsanno wixii shirkii ku xigay aynu ku kala tagnay wixii noo qabsoomay iyo waxa inaga dhiman runtii waxaan ogahay in wax badan ay qabsoomeen oo ay ka mid tahay ballanqaadyada ama wax qabadka hadday tahay wasaaradda maaliyadda dawladda dhexe iyo degmooyinka wax qabadka ay sheegeen waxay inoo qabsoomeen waxa laynooga baahan yahay inaan sii kordhino wasaaradda maaliyadda runtii oo 20 bay gaarsiisay sida laynoo sheegay degmooyinka waxa loo baahan yahay inay runtii degmo waliba wixii ay iyadu ku darsato iyaday galaysaa marka xataa hadday badiyaan wasaaradda maaliyadda waa la tartamaysaa way kordhinaysaa marka iyaga looga baahan yahay isku tashiga noocaasa inaynu isku tashanno oo mashaariic aynu maxay tahay ka hormarino degmooyinka wasaaradda ama dawladda dhexena runtii aad iyo aad bay diyaar ugu tahay waxa loo baahan yahay in aynu waxa hadda runtii wasaaradda caafimaadka iyo wasaaradda tacliinta iyo dawladaha hoose heshiis bay gaadheen intii aan ka warqabay oo ah in maamul daadintii la daadajiyo oo degmooyinka lagu soo wareejiyo marka arrinka isaga ah meel fiican maraya degmooyinka waxa loo baahan yahay inay wasaaradahaas ay wada shaqaynta leeyihiin runtii wax ka dhaxeeyaan inay la fadhiistaan oo aanay degmooyinka qudheedu waxaanay qaadi karin isa saarin marka sida aan la socdo waxa weeye marar baa caafimaadka oo kale haddaan ka soo qaadno maanta maxay tahay wasiirkii iyo wasaaraddii ay nala joogaan mashaariicda ka socota ama MCH-ada ama kuwa ka hooseeya rugta ha adeene waxa suurtagal ah in 6 bilood aan maxay tahay aan waxba ka socon marka ay dawladdu iyo wasaaraddu siyaabo kale u maamusho marka arrinka isaga meel baan fadhiisinay dibna waa isugu noqon doonaa haddii la yidhaahdo cabatin waa maqlayay weli inaanu fadhiisan oo wasaaradda dawladaha hoose iyo qaar baanu meeyarada aanu ka wada hadlaynay insha Allah waa la isla eegayaa wixii ay qaadi karaan oo la wareegi karaan wasaaraduhu diyaar bay u yihiin inay ku wareejiyaan dawladaha hoose oo maamul daadajintu waa mashruucaad aynu ku heshiinay programka socda ah waayo inaga inoo tahay inaynu korro oo degmooyinku qaarkood ay graduate garoobaan oo hadda goortii la soo bilaabay mashruuca kan GBLG waad garan kartaan marka
dabcan inaynu degmooyinkaa waaweyni inay maxay tahay ay graduate garoobaan oo ka koraan oo degmooyin kale ay meeshii laynkii qabsadaan baa loo baahnaa dabcan way soo socotaa hadda sida uu sheegay MJ laba degmaa lagu daray waxaan doonaynaa inay dawladda qudheedu waxay runtii horumarinta gobollada la sameeyo waatan wadooyinkan iyo mashaariicda tan aad arkaysaan waa dabcan waa horumarinta gobollada iyo degmooyinka marka arrimaha noocaas oo dhan inaynu ka wada soconno oo aynu isku tashi samayno oo qolo walba docdeeda ay maxay tahay ka qabato hawsha ayaa loo baahan yahay aad iyo aad baad u mahadsantihiin shirkeenniina waynoo furan yahay waxaan rajaynayaa inuu ka soo baxo qodobo wax ku oola runtii oo aynu halkaa hore uga soconno oo shirkeenna ku xiga aynu wax la taaban karo oo ka soo baxay maxsuulkii ka soo baxay aynu aragno aad iyo aad baad u mahadsantihiin shirkeennina waynoo furan yahay wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu